bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada warka duhurnimo ee reediyo kulmiye qodobada maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo maanta ku geeriyooday dalka ethoobiya baarlamaanka jubbaland oo maanta kulan degdeg ah ka yeeshay dil xalay ka dhacay magaalada kismaayo madaxweyne biixi oo beeniyey in xiisad u dhaxaysa puntland iyo somalilan ay ka taagan tahay deegaano ka tirsan gobolka sanaag somalilan oo irdaha isugu dhufatay tiifiyo ku yaala magaalada hargeysa madaxweynaha maamulka puntland oo la filaya inuu isku shaandhayn ku sameeyo golaha wasiirada ee maamulkaasi golihii deegaanka burtinle oo iscasilay suuriya oo sheegtay inaysan diyaar u ahayn dagaal ay la gasha dhiggeeda turkiga iyo madaxweynihii hore ee dalka masar oo lagu aasay bariga caasimadda dalkaasi mad kale ku celi war bal ii warran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa beenraad ma leh kulmiye ka dhegayso wayna kaa haddaba waa duur talaadaha dhegaystayaal taariikhdana ay ku astaysan tahay 18 bisha juun sannadka 2019 intii aad maqasheen waxay ahaayeen qaar ka mida qodobadii warkeenna ugu waaweynaa iminkana u diyaargarooba isagoo dhammaystiran duurnimadana wadajir waxaa idinkugu warramaya anigoo maxamed shurye nuur iyo faadimo abuukar cabdi madaxweynaha somalilan muuse biixi ayaa beeniyey in ay jirto xiisad u dhexaysa puntland iyo somalilan islamarkaana ay ka taagan tahay xiisadaasi deegaano ka tirsan gobolka sanaag yonis duraan cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa waxa uu ka hadlay xiisadaha colaadeed ee ka taagan maalmihii u dambeeyey deegaano ka tirsan koonfurta gobolka sanaag oo ay ku murusan yihiin somalilan iyo maamulka puntland madaxweynaha somalilan ayaa beeniyey inay xiisad dagaal ka jirto gobolka sanaag wuxuuna sheegay in shacab ka degan deegaanada bariga gobolka sanaag ay iyagu xor u yihiin inay doortaan ama ay raacaan maamulka ay daneynayaan sidoo kale muuse biixi ayaa waxa uu sheegay inaysan colaad kala dhexin dowlad goboleedka puntland isagoona tilmaamay inay ka wada shaqayn doonaan deganaanshaha gobolka sanaag iyo daris wanaagga madaxweyne biixi oo hadalkiisa sii wata waxuu sidoo kale soo hadal qaaday dagaal beeleedyada muddooyinkii dambe ka dhacayay deegaano ka tirsan gobolka sanaag wuxuuna sheegay in dhib weyn ay xukuumaddiisa ku hayso colaadaha muddooyinkii dambe ka taagnaa gobolka sanaag sanaag aad iyo aad buu fiicantay gobolkii sanaag balaa saa kama jirto waxaa ku doodayay laba nin oo ilmaadeera oo midna yahay wasiir puntland midna wasiirka somaliland dadkuna meel kastoo dooda way ka joogtaa xaq bay u leeyihiin inay iyagu isqanciyaan inay somaliland iyagu ku qancaan inay iyagu qarannimada qaadaan reer badhan iyo reer dhahar iyo reer laascaarood adiga somaliland adigu kaaga dhex jeclo badanya iyagaana dhisaaya iyagaana sii socda dalkooda waanu ku ixtiraamaynaa waanu ku garabgelaynaa puntlandna col ma nihin soomaaliya iyagaynu jaar ka nahay wanaag baynu ka doonana ku wada noolaanno xuduudkii gaaladii afrika o dhan u qortay inbaa inoo dhexeeya xuduudka inagu maynaan samayn waa isticmaalkii afrika o dhan ay maarata ku dhisan tahay waxaanu leenahay walaalnimo iyo wada shaqayn aynu ku bedelno colaad iyo reer hebel baynu iyo reer hebel baynu markaa dhibaato ka jirta puntland iyo somaliland waa dhibaatooyinka caadiga ka jirta waxa ka daran oo ka jirta ta gudaheedhaa ka xun sanaag sanad iyo barbu dagaal sugaya ka socda waxa la isku dilaayan garan maayo dagaal qabyaaleed baa ka socda oo aan dhammaanayn oo dad ku dhammaaday oo tacliinta ku hagaastay oo horumar ku hagaastay oo ardayda aali wax ku baranayay oo ay wadaan somaliland deegaankeeda beelaha ah oo weliba daba dheeraaday markaa kaasaa xal u baahan dhibaatada taa weyni waa tu ay dadka somalilan ee badhan iyo laasqoray iyo laascaanood jooga ay iyagu wadaan oo baahna garab galo aad garanaysana soomaali xad weliba reeru ku dhexdhacay bidhihii u dambeeyey ayaa gobollada sool iyo sanaag qaybo badan oo ka mid ah waxaa ka taagnaa xiisado dagaalo u dhexeeyey ciidamo kala taabacsan puntland iyo somalilan sidoo kale deegaanada qaybo badan oo ka mid ah waxaa ka aas-aasmay jabhado ka soo horjeeda somalilan shalay oo u dambeysay ayaa ciidamo ka tirsan somalilan waxay rasaas ku fureen dad shacab ah kuwa oo caalanka soomaaliya iyo kan puntland ka taagay deegaanka damalaxagaree gobolka sanaag waxaana rasaasta ay dhalisay khasaare dhaawacyo ah oo soo gaaray dadkii shacabka ahaa dhowaan ayay ahayd markii ciidamo badan iyo saraakiil deegaan ahaanna ka soo jeeda gobolka sanaag ay ka soo goosteen maamulka somalilan kuna biireen ciidamada puntland baarlamaanka jubbaland ayaa maanta kulan degdega ka yeeshay dil xalay ka dhacay magaalada kismaayo wariyaheenna maxamed qaasim cali waxaa arrintan goordhow ka waraystay war-soo saaraheenna maanta cali suxayfa
oo maasantahay iyadoo habeennimadii xalay ahayd la dilay mid ka mid ah odayaasha dhaqanka Jubbaland laguna dilay magaalada Kismaayo oo kooxaha hubeysan oo aan la garanayn xalay dileen ayaa xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland kulan degdeg ah ay maanta ka yeesheen arrintaasi waxaana inta badan kulanka xildhibaanada uu ku aadanaa in ay tacsi ay u diraan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday nabadoonkaasi oo ay sheegeen in gacan ka xaq daran ay dishay isla markaasina uu ahaa nin jecel nabadda guud ahaanba Soomaaliya ee gaar ahaan deegaanada Jubbaland sidoo kale xildhibaanada waxa ay sheegeen sida laamaha amniga ay sheegeen dabagal lagu hayo cidii ka dambeysay dilkaasi iyagoona sii taakiidiyey ama kusii booriyey in gacanta lagu soo dhigo gacan ku dhiglihii dilkaasi geystay mudanayaasha doodooda kadib gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Sheekh Cabdiraxmaan oo warbaahinta la hadlay ayaa tacsiid tiiraanyada guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer Jubbaland iyo eheladu ka baxay nabadoonka u gudbiyey isagoona sheegay inay aad uga xun yihiin dilka loo geystay nabadoonkaasi oo lagu magacaabo nabadoon Ibrahim Garay waxaana uu yiri gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland Ibrahim Abdiqaadir Xasan garle ku lagu naaneeso oo ka mid ahaa odayaasha dhaqanka dawlad goboleedka Jubbaland waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay ha u naxariisto annagoo ku hadlayna afka baarlamaanka dawlad goboleedka Jubbaland oo metela shacab weynaha reer Jubbaland ilaahay ha u naxariisto ugaaskaas gacan ka xaq daran baa dishay waxaan aaminsanahay ma ogin cidii dishay laakiin cidii dadka bermageydida ah ee ummadda islaamka ah hoggaankeeda ah sida xaq darrada ku leen jirtay inay dishaan aaminsanahay ruux kale oo iimaan leh oo islaama oo ruux xaq la'aan dili kara annaga oo aan ognahay kala ma jiro marka insha Allah waxaan ilaahay ugu baryaynaa inuu ilaahay jannada firdawsa ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo guud ahaan ummadda islaamka ah iyo ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ummadii reer Jubbaland uu hoggaanku ahaa uga tacasiideynaa inuu samir iimaan ilaahay uu ka siiyo dhammaan gaar ahaan qoyskii iyo qaraabadii uu ku metelay hoggaanku ugu ahaa ummaddan Jubbaland ayagana waxaan leenahay sabir iyo iimaan Allah idin siiyo asagana waxaan leenahay ilaahay jannadii firdawsa ha geeyo adinkana waxaan idin leenahay waxa ku laab qabowsataan rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri mu'minka dilkiisu wuxuu dhiman yahay dhimashadiisu in la dilo waayahay waxarow codka gudoomiyaha waan dhageysanay dhanka kale waxaad iga warantaa saraakiisha Jubbaland ilaa hadda cid ay u soo qabteen miyaa jira dilkii loo geystay nabadoonka ilaa hadda ma jirto cid rasmi ah oo loo soo qabtay oo loo soo gudbiyey warbaahinta ama la shaaciyey in loo hayo falkaasi dilka balse saraakiil ka tirsan booliska ayaa sheegay in ay ku daba jiraan ama ay baadigood xoog leh ku hayaan cidii ka dambeysay dilkaasi iyagoona sheegay in ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ay hawlgallo kala duwan ay ka wadaan goobihii uu falkaasi ka dhacay iyo qaybo kala duwan oo ka tirsan magaalada waxaana ay sheegeen in waxyaabaha baaritaanadaasi ka soo baxa ay dib ay ugula wadaagi doonaan ummadda reer Jubbaland iyo guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub ayaa maanta ku geeriyooday dalka Itoobiya waxaana geerida abwaanka ka hadlay golaha abwaanada Soomaaliyeed iyo ehelka abwaan sangub burhaan diini faarax ayaa inoo faahfaahinaya allah u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise oo sangub ku magac dheera ayaa ku geeriyooday isbitaal ku yaala magaalada Addis Ababa maanta oo shalay uun qalin dhinaca lugta lagu sameeyey sida ay noo sheegtay Muno Maxamuud oo abwaanka u dhalay Muno waxay radio kulmiye u sheegtay in abwaan sangub maalintii sabtiga la geeyay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya axadiina isbitaal la dhigay hase ahaatee maanta uu ku geeriyooday Allah u naxariisto horta aabba sabtiga Itoobiya tagay Addis Ababa axadina waa la dhigay dhakhtarka shalay bashiniina qalliinka uu galay marka lug baa xanuunaysa mooya dhibka iyo culayska lama qabin lugta midig ma aragtay oo in muddo xanuunaysay ayaa jirtay
marka sida naftooga baxday hooyo igu tiraaba nafti ma hadduu naf baxaa. abwaan cismaan cabdulaahi guure oo dhammaadkii bisha ramadaan ay cimrada isku arkeen abwaan sangub allah u naxariistay ayaa inooga sheekaynaya sida uu ahaa markii ugu dambeysay. buraandiini abwaan sangub allah u naxariiste markii cimrada aan wada joognay xaaladiisa waa uu xanuunsanaay sidaa la socoto horey sokor iyo dhiikarba waa uu qabay haddana lug ayuu ka xanuunsanaay oo weliba waa jaban tahay iyo tarana ku jira intaba la isku hayay inta cimrada lagu jiray aad uu xanuunsaday oo waxaa la geeyey isbitaal ay boqortooyadu leedahay hase yeeshee waxay dhaheen qalliin kuma samayn karno oo in la qalo lugta bere la geliye ayay rabtaa qalliinna laguma samayn karo sokortiisa aad u kacsan ayay dhaheen markii sokortu kasoo degto ana loo soo celiyo ayay yidhaahdeen asagoo xanuunsan oo lagu wado gaarigi lagu riixayo ayaa haddii alla kuu roon yahay oo dawaafayay xaramka rabbi kadibna magaalada jidda ayaa la keenay markaas anugu waan soo gudbay oo haddii alla kuu roon waan soo baxay hase yeeshee 2 maalin ka hor ayaa la geeyey magaalada Addis Ababa oo waxaan maqlay in madaxweynaha kilinka Mustafa Cagjar oo casuumay isbitaal ayaa la geeyey xalay waxaa la sheegay in la qalay hase yeeshee weli suntii aysan ka bixin oo soo naaxin qadarta rabbi ayaa dhamaatay haddii Allah u naxariisto waxaan isleeyahay asagoo 10kii Ramadaan u dambeysay cimraysanay oo cibaadaysanay oo xanuunsan oo Ilaahay dartiisa soo gurguuranayo u dawaafay waxaan isleeyahay dariiq wanaagsan ayuu ku dhintay marka Ilaahay u naxariisto bashar waliba waa dhiban balla weeye geeridu qofna baaqan maayo oo guddiisa u nuure. Ilaahay u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub sanadihii 40maadkii ayuu ku dhashay deegaanka dhagaxbuur ee dhulka Soomaalida galbeed si weyn ayuu uga dhex muuqday fanka Soomaalida waxaana uu ka tagay dhaxal suugaaneed aan tiro yareen oo wadaniinta u badan ayuu tiriyay waxaana kamid ah heeso guubaaba ah oo xataa lagu gubaabinayo madaxda Afrika riwaayado ay ugu caansan yihiin qabrigii jacaylka xuskii jacaylka xud baaliqi jacaylka iyo kuwa kale oo aan tiro yareen ayaa abwaanku u sameeyay sidoo kale bahda fanka ayaa ku tilmaamay Allah u raxmaday abwaan sangub inuu ugu horeeyo abwaanada ugu riwaayadaha ee heesaha badan waayaha burburkana waxa aad lagu xasuustaa sameynta riwaayada ay kamid yihiin qabya 1 iyo 2 oo ku sameeyay dalka Mareykanka iyo riwaayadii kale ee siyaasadda maxay tahay sanadkii 2013 waxa uu sheegay inuu fanka ku bilaabay ciyaaraha hidaha ee dhaqanka oo marka fanka la joogo loo yaqaan ciyaartooy abwaanka ayaa sidoo kale soo noqday maamulaha tiyaatarka magaalada Hargeysa waxaana uu soo saaray fanaanin caan ah oo aan tiro yareen waxyaabaha lagu xasuusan doono abwaanka ayaan weydiiyay abwaan Cabdulluux Yuusuf oo kamid ah abwaanada Soomaaliyeed. Wallahi sangub waxaan isnaqaanaa muddo dheer waa bari waan isaga horeynay sangub 4 baan meesha hadda xalana loo bixiyay ayaan ku wada galnay dhibow askareed kooxdii xoogga dalka Soomaaliyeedna waanu wada ahay dabadeedna waa bari baana lagu wada aasaasay sangub iyo anigu shaqo badan baan soo wada qabanay dibadda iyo gudahaba riwaayado badan baan wada dhignay oo isagu uu lahaa iyo kuwa kaleba riwaayadii ugu dambeysay oon wada dhignayna waxay ahayd darajiye xilyaa mudan oo aanu Djibouti ka wada matalaadeeda ka wada qayb galnay aniga isagu abwaan buu ahaa weyn dadka ugu riwaayadaha badan la waa bari buu ayuu ka mid ahaa aduuna ugu horeeyay ninba dalkan heeso iyo riwaayado iyo gabayo wax badan buu sangub lagu xusuustaa kaydka waa buuxaa haddii sangub laga baaro meel walba dalka iyo dibadda abwaanku waa soo shaqeeyey askarinimuu ku soo shaqeeyey abwaannimuu ku soo shaqeeyey ciyaaryahan buu ahaa gabayaa buu ahaa abwaan sheekooyinkii riwaayadaha sameeyuu ahaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naxariisto ilaahay ka baryaynaa amiin insha Allah heesaha uu sameeyay waxa ku jira qaar xataa Afrika horiyadeeda uu qayb ka qaatay maxaa ka yaani heesta caanka ah oo la yiraahdo muxuu ahaa markaas Afrikaanku ay xor ahaa 49 dal oo Afrikaana ayaa xor ahayd uu heesta ku asteeyay 49 naas buu Afrika sidaadaba sacbad xoolo leedahay la yiraahdo saxar diid
49 naas oo caanuhu ay susumayaan yacnii heestii cajaa'ibka ahaydoo ay ka qayb galeen magool iyo saynab cige iyo salaaderbi iyo maxamed saleebaan ay baartisoolada ku lahaayeen ayay ahaydoo cajaa'ibka ah oo dee marka la fiiriyana xagga siyaasadda iyo waxa nooca uga hadlay ahayd nooc cajaa'iba abwaanka waxaan leenahay wakhtigii baa ku dhammaaday intaasuu adduunyada ku lahaa taariikh badanna wuu ka tegey ilaahayga casa wajallaah ha u naxariiso qabrigana allah u waasiciyaan leen ehelkii iyo xaasaskii iyo carruurtii iyo saaxiibbadiina waxaan leenahay samir iyo iimaan allah ka siiyo annagoo dhanna samir iyo iimaan allah naga siiyo gudoomiye ku-xigeenka golaha abwaanada abwaan xiise dhuux maxamed weheliye ayaa ka tacsiyeynaya geerida abwaanka inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruuna madhinta waa ilaahay waxaan shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan khaas ahaan golaha abwaanada soomaaliyeed khaas ahaan qoyska abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub uga tacsiyeynayaa geerida naxdinta leh ee ku timid allah u naxariistee abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub maxamuud cabdulaahi ciise sangub wuxuu ahaa guddoomiyaha golaha abwaanada soomaaliyeed daqiiqada ka hor ayuu hadda ku geeriyooday magaalada addis ababa waxaan leeyahay kitaabkiisa midigta allah ka siiyo martii la jecel yahay oo lasoo dhoweeyo allah ka siiyo waa tiir ka jabay tiirarkii abwaanada soomaaliyeed ku taagnaayeen run ahaantii aad iyo aadna muxuu ahaa waa arrin murugadeeda leh marka allah u naxariisto shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoyskiisa iyo golaha abwaanada soomaaliyeed dhammaantoodba waa uga tacsiyenaya allah u naxariistay abwaan maxamuud cabdulaahi ciise sangub oo ay ku weyneyd soomaalinimada ayaa sidoo kale lagu xasuusanaya gabayo aan tiro yareen oo uu ka sameeyey xaaladaha dalka waayihii burburka iyo xataa meesha uu ka istaagay damaca kenya ee badda soomaaliya tolla'ayoo tolla'ay tolla'adoo tolla'ay tolla'ay soomaaliyay tolla'ay tolla'ay dawladdaydahay tolla'ay tolla'ay ciidankaygii geesigaayoo tolla'ay tolla'ay ama maanta ay kenya iyadoo dhulka iyaga haysata ay ku firdheen inay ku soo durkaan oo intii hadhana qaataan haddaanu nahay bahda rediyo kulmiye waxaan tacsi u diraynaa ehelada abwaan sangub allaha u naxariistee oo aan tiiraanyada la wadaagayno mahadsanid burhaan diini faraxa warbixintaasi ku eegaya geeridii ku timid allaha u naxariistay abwaankii soomaaliyeed maxamuud cabdulaahi ciise sangob somalilan ayaa irdaha isugu dhufatay tiifiye ku yaala magaalada hargeysa telefishinada la xiray waxaa ka mida eryal iyo horyaal sida warkan uu ku faahfaahinaya farxaan maxamed xuseen wararka naga soo gaaraya dhanka somalilan ayaa waxay sheegayaan in maanta ciidamada booliiska somalilan ay albaabada iskugu dhufteen 2 telefishin oo lagu kala magacaabo eryal iyo horyaal 24 t v kuwaas oo xarumo ku kala leh magaalada hargeysa ilaa iyo hadda lama yaqaan sababta ka dambaysa in ciidamada booliiska ay xiraan xarumaha telefishinadaasi dhanka kale ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soldier wuxuu si adag u cambaariyay talaabada Soomaaliland ay ku xirtay 2 telefishin ee kala ah horyaal 24 iyo Aerial TV kuwaasi oo ciidamada booliiska ay la wareegeen xarumahooda Hargeysa kuna amreen inay shaqeyn karin sidoo kale waxa arrintan ka hadlay ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed Nosej waxayna sheegeen inay aad u cambaareynayaan xariga loo geystay 2 telefishin ee kala Aerial TV iyo horyaal 24 TV waxayna Nosej sheegtay in falkan uu yahay mid ay aad ugu xun yihiin isla markaana waxay sheegeen in xitaa aan loo degin 2 telefishin madaxweynaha maamulka Puntland Deni ayaa la filayaa inuu isku shaandhayn ku sameeyo hay'adaha maamulkaasi iyadoona dhinaca kale golihii deegaanka ee Burtinle ay iscasileen 16 xubnood oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Burtinle waxaa xalay iscasilay kadib markii uu shalay mooshin ku furmay kalfadhiga golaha oo ka koobnaa 23 xubnood Cumar Maxamed Soomane ayaa warkan inoo soo koobay 16 xubnood oo kamid ah golaha deegaanka degmada Burtinle ee gobolka Nugaal ayaa maanta ku dhawaaqay in ay iska casileen xilkaasi kadib markii shalay uu mooshin ku furmay kalfadhigii golaha deegaanka degmada Burtinle oo ka koobnaa 23 xubnood mooshinka laga keenay gudoomiyaha degmada Burtinle maxamuud axmed buurdibi ayaa waxa uu ku saabsanaa khilaaf xoogan oo uu soo kala dhexgalay isaga iyo xildhibaanada golaha deegaanka waxaana xildhibaanada ay gudoomiyaha ku eedeeyeen xil gudasho la'aan sida uu qaba xeerka golayaasha deegaanka Puntland ee number 7 haddii 3 meelood 2 meel iyo in ka badan ay iscasilaan golaha deegaanka waxaa sharci ahaan sidaasi lagu kala dirayaa dhammaanba golaha deegaanka
mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha gudaha maamulka puntland oo iminka ku sugan degmada burtinle ee gobolka nugaal ayaa laga sugayaa in ay soo dhisaan golaha deegaanka cusub. xeerka golayaasha deegaanka puntland ayaa waxa uu dhigaya in muddo 45 cisho gudahooda lagu soo dhiso xubnaha cusub ee golaha deegaanka. dhanka kale madaxweynaha puntland Siciid Cabdulaahi Deni ayaa waxaa lagu soo waramayaa in uu wado isbeddel dhanka maamulka ah ee hay-adaha dowladda kaasi oo u waday tan iyo intii uu soo dhisay xukuumaddiisa. warar lagu kalsoon yahay oo laga helayo xarunta madaxtooyada ayaa sheegaya in madaxweynaha toddobaadyada soo socda uu taliyayaal cusub u magacaabi doono ciidamada daraawiishta iyo booliska puntland. qaar ka mid a agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda ayaa la filaya in wasaarada kale loo bedelo halka qaar cusubna la keeni doono sida ilo xogogaala oo madaxtooyada ay inoo xaqiijinayaan. halkaad warkaasi duhurnimo kala socotaana dhegaystayaal waa reediyo kulmiya. goordhow akhbaaraadkii caalamka ayaa inoo soo socda hase ahaatee markana warka dibadda. wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda suuriya ayaa sheegay inaysan doonaynin dagaal ay la galaan turkiga kadib markii ay dhowaantan ankara ay sheegtay in la weeraray fariisimo ay ku leedahay gobolka idlib ee dalka suuriya. colaadda suuriya ayaa waxaa ka qayb qaadanaya dowladda suuriya oo taageero ka helaysa ruushka iyo turkiga oo la dagaalamaya fallaaga uu u arko argagixiso oo ku sugan gudaha dalkaasi. balse waxaa lagu guuldaraystay bilihii lasoo dhaafay dhowr wadahadal oo la doonayay in la isugu soo dhoweeyo dhinacyada isaga soo horjeeda halkaasi. dalka turkiga ayaa dhanka waqooyi galbeed xad kala wadaaga gobolka idlib ee dalka suuriya halkaasi oo ay ku sugan yihiin fallaaga ka soo horjeeda dowladda 8 sanad colaadda ku jirtay. wasiirka arrimaha dibadda suuriya waliid al-mucalim ayaa wariyaal ku sugan beijing u sheegay inay diyaar u yihiin in turkiga ay si wada jira ula diriraan kooxaha loogu yara argagixisada gaar ahaan kuwooda ku sugan gobolka idlib. madaxweynihii hore ee dalka masar maxamed mursina waxaa maanta lagu aasay bariga caasimadda dalkaasi ee qaahira kadib markii uu shalay ku dhacay maxkamaddii ay dacwadiisu ka socotay waxyar un kadibna uu geeriyooday. mursi ayaa saaka waa berigii la aasay iyadoona aaskiisa ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan ururka ikhwaanul muslimiinka. sidaasina waxaa facebookiisa ku soo qoray walaalkiis axmed mursi. sidoo kale aaska waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan qoyskiisa iyadoona mas-uuliyiinta dowladda masar ay diideen in lagu aaso gobolkii uu ku dhashay sida uu hadalkiisa sii raaciyey axmed mursi. maxamed mursi ayaa noqday madaxweynihii ugu horreeyey oo si dimuqraadi ah loo doortay sanadkii 2012 kadib markii uu meesha ka baxay madaxweynihii 30 sano dalkaasi maamulayay ee xusni mubaarak. madaxweyne mursi ayaa sanad kadib militariga masar xilka ay ka tuureen kadib dibadbaxyo xoogan oo halkaasi ka dhacay. gudaha dhegeystayaal warkii duhurnimo aad kala socoteen idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho maanta intaa ayuu ku dhan yahay ciddu warka iyagu sheegay. mar kale bogagga internetka idaacadda ayay dib kaga heli karaan. tani kulankeenna xiga nabadgelyo.